waxaa laga sheegayaa waa dhab xisbiyada xilkoodii wuu maqan yahay xisbiyada saynu ugu jirnaa laba sayood baynu ugu jirnaa si saddexaad ma jirto xisbiyadu NGO-ya sal ballaaran uuna constituency badan tirsanaya haddaan xisbiyaan sameynay maxaa lagu maamulayay maxaa qabanaya xisbigii yaa qaabilsan sharcigee baynu ku maamulinay xaggaad lacag ka keentaa ma istoorataa goormaad shirka qabataa giddi waxaa laga wada cabanayaa xisbiyadu internal democracy ma leh hal loo gala maanta xisbiyada qofku hadduu doodba keenaba warqad baa la qoray xisbi ilbaaxisa laga saaran lahaa suluux xisbi ku noqonaya xisbi aan dhexdiisa lagu doodi karin xisbi aan aragtidaada aan la dhegaysanba karin hadda waa ururo waa halkii madaxweyne ka soo baxayay waa halkii guddoomiye xisbi ka soo baxayay inaanay bulshadu u lahayn fursad maanta after 20 sannadood political program fulayde kama hayno subscription aad dadka ka qaadaan oo ku maamushaan idinma hayno xisbigiinu xisaab xidhi ama xisbiyada guud ahaan bil walba sharcigu wuxuu ka rabaa inaad komishanka u gudbisaan lama yaqaano weligiin maydaan samaynin partisku iminka ay diidaan aniga waxa ay qorshaysan inaynu ururo siyaasadeed samayso maxay samayn karaan inaynu dadka ku guulaysanaa inaynu saddex nin xisbi haddaan dadkii wanaagsanaa aqbalayn dadka inaynu ka reebno eedda waxa iska leh xisbiyada inay xisbiyadu go'aanka qaataan xulista dadka baarlamaanka ay keenayaan markaad ka eegto yaasiin kusoo gabagabeeyay waad guuldaraysataan xisbiyadii oo aqbala taas miyaanay u baahnayn waa aragtidiisa haddii la isku waafaqo aad maxaad aaminsantahay anigu waxaan aaminsanayay inay guulaysteen oo waddanka guul ay gaadhsiiyeen waxna ka dhiman yihiin xoogga inta badan ma saaraan waayo xisbiyadii waxay noqdeenuun waddo lagu gaadho kursiga oo ninka xildhibaanka xisbi ka soo baxay hadduu xisbiga ama siyaasaddiisa ku shaqayn waayo ama reerkooda la qabto xisbigaa lagaga saari karo xilka lagaga qaadi karo kii kale kaydkaa ku soo geli kara totally beri nidaamka qabiilka iyo dimuqraadiyaddu way iska hor yimaadeen meelo badan oo afrikaan waxa loo yaqaan waxyaalaha iminka intaan ku dhex jiraan maqlaya maalin la kaambeyn gareynaya waxaa ka mid ah kolleyba waa waraabayaal waraabaxaaga aadna ku darso hal waraabayaal habeen ma noolaanayso mugtaa yaasiinow dee su-aashani meesha mabay oolin warna uma haysidin wax la celiyey iyo inaan la celin yaa kuu sheegay ninka $200,000 ama $300,000 ay kaga baxeen doorashada ay kaga baxeen doorashadiisii berri ka maalin markuu golaa soo fadhiisto uu ku khasban yahay deyntii uu qaatay halkuu ka soo celinayo inuu doono taana meel kale kamid ma soo dee dukaan kale bakhaar looma furaye golihii wakiiladaa la geenaya markaa waa inaad xeerkii la keenayba aad iibiyo qofkii soo ma dadkii aynu aqoon-yahanka u naqaanay in ay inoo sameeyaan siyaasad cusub oo ka gedisan kuwaas reer galbeed iyo dunida kale soo tijaabisay